Waqtiga iyo dhalinyaronimada. Waqtiga iyo dhalinyaronimadu waa laba mowduuc oo mid walba haddii gaarkiisa looga hadlo aan la soo koobi karin muhiimadda iyo faa'iidada ay u leeyihiin nolosha. Waa laba wax oo isu baahan, laakiin aad isu moogan marka loo eego sidaysan u kala faa'iidaysan. Dhallinyaronimaduna waa waqtiga ugu muhiimsan ee aadanaha soo mara. Waa waqtiga keliya ee si gaara xoogga ay u saartay diinteennu, in badanna nebigu calayhi salaatu wassalaam inooga warramay inuu yahay xilli si gaara la isu weydiin doono. Waxaa ka mid ah axaadiista looga hadlay dhallinyaronimadu inay tahay xilli si gaara la isu weydiin doono. Xadiid uu inoo soo warinayo ibnu cabbaas, allah ka raali noqdee, inuu yidhi suubanuhu calayhi salaatu wassalaam, 5 ka faa'iidayso inta aysan 5 kugu imaan. 1. Dhallinyaronimadaada ka hor intuusan kugu imaan gabowgu. 2. Caafimaadka inta aanu kugu imaan xanuun. 3. Qaninimada inta aanu faqri kaa daba imaan. 4. Jaaniska iyo waqtiga firaaqada inta aanu mashquul kugu imaan. 5. Noloshaada inta aysan geeridu kugu imaan. Waxaan arkaynaa in dhallinyaronimadu ay tahay qodobka uu ugu hormariyey nebigu calayhi salaatu wassalaam. Waa kan xadiid kale oo si gaara u tilmaamaya arrinka isaguna. Waa xadiid uu inoo soo warinayo ibnu cumar, allah ka raali noqdee, inuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, ina aadane ka dhaqaaqi maayo fagaaraha xisaabta ilaa la weydiiyo 5 arrimood, kuwaas oo kale ah: 1. Cumrigiisa waxa uu ku dhaafay. 2. Dhallinyaronimadiisa waxa uu ku dhammeeyey. 3. Maalkiisa halkii uu ka kasbaday iyo wixii uu ku bixiyey. 4. Aqoontiisa wixii uu ku qabtay. Iyadoo la isweydiiyey cimriga oo idil, ayaa haddana dhallinyaronimada gaar la isu weydiiyey. Waayo waa xilliga ugu mudan ruuxa bini'aadamka, waana xilliga keliya ee uu qofku leeyahay waqtigiisa oo dhan keligii, wax badan oo mashquulinayana aysan ku xirnayn. Sidoo kale, waqtigu wuxuu ahaa wax agtooda uu qiimo ku leeyahay dadkii hore ee wanaagsanaa. Waa kan imaam xasan albasri isaga oo leh, waxaan soo gaaray qolo waqtigu uu agtooda kala qiimo badan yahay si ka daran sida uu dirhamka iyo diinaarku agtiina qiimo uga leeyahay. Haddii aan milicsano taariikhdii hore iyo tan dambaba, dhallinyaradu waxay ahaayeen awood salow ah isbeddel walba oo ka dhaca dunidan. Ka soo bilow diinteenna dadkii u gargaaray, suubanahana sallallahu calayhi wasallam garab istaagay ee dhabarka u dhigtay wax walba oo dhibaato ahaa, waxay ahaayeen dhallinyaro. Kadib dhimashadii nebiga sallallahu calayhi wasallam, gaarsiiyey diintan muddo ka yar 25 sano, qaarado aan isu dhoweyn, waxay sidoo kale ahaayeen dhallinyaro. Dhallinyarada aan ka tilmaami karo taariikhdeenna islaamiga ah waxaa ka mid ah saxaabigii Sayd ibnu Xaaritha. 13 sano ayuu jiray markii uu ka mid noqday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wassalaam qur-aanka u qori jirtay. Wuxuuna ahaa ruuxii uu nebigu sallallahu calayhi wasallam u diray inuu barto luuqadaha Siiriyaaniga iyo Cibriga. Muddo koobanna waa uu ku soo bartay. Waxaa ka mid ah sidoo kale taariikhda islaamiga dhallinyarada aan ka xusi karno Cabdiraxmaan al Naasir, oo ka mid ahaa madaxdii Andalus soo martay. Andalus waxay ahayd boqortooyo islaamiga oo ka dhisnayd waddanka hadda loo yaqaano Spain iyo sidoo kale Portugal. Waxaa lagu sheegay Cabdiraxmaan al Naasir markii uu talada hayay inuu ahaa xilligii dahabiga ahaa, sidaasoo ay tahay da'diisu waxay ahayd 21 sano. waxaa kaloo ka mid ah ragga aan ka tilmaami karno Moxamed al-Faatix. Maalinkii uu furanayay magaalada Istanbul ee boqortooyadii Byzantine uu kala wareegay, wuxuu jiray 22 sano, wuxuuna noqday hogaamiyihii helay bishaaradii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Dhanka kale, markaan u nimaano taariikhda casriga ah iyo dunida horumartay ee aan maanta majeerano, wixii isbeddelkooda dhidibada u taagay waxay ahaayeen dhallinyaro waqtigooda ka faa'iidaystay. Dhammaadka 50meeyadii iyo bilowgii 60meeyadii waxay ahayd xilliyadii ay xargaha goosatay kacdoonno ay arday dhallinyaro ah hormuud u ahaayeen, kana dhalatay dalalka Jarmal, Mexico, Faransa, Maraykan, China, Talyaani iyo waddamo badan oo uu hanti wadaaggu horkacayay.
Haddii aan ka soo qabanno tii ugu xoogganayd ee ka dhacday dalka Faransiiska, toddobaatameeyadii dadkii u istaagay isbeddel inay dhidibada u taagaan waxay ahaayeen dhallinyaro dareentay inay baylaha u noqdeen in yar oo ku dul macaashaysa ee aan horay iyo gadaal toona u wadan, muhiimna ay u arkeen inay iska kiciyaan si ay u dhisaan noloshii ay rabeen inay ku noolaadaan, wax walba ha ku waayaane. Kacdoonkaa wixii ka dambeeyey waxaa lagu baraarugay dhallinyaradu inay tahay halis aan la dhayalsan karin, isla markaana waxaa loo dejiyay nidaam lagaga mashquuliyo siyaasadda iyo isbeddelladii ay hormuudka u ahaayeen, isla markaasna wakhtiga looga dili karo. Ha ahaato nidaam waxbarasho oo uu qofku ku fooraro inta ugu muhiimsan cimrigiisa ilaa 20 ilaa 30 sano, kubadda cagta iyo fanka oo dhinac walba laga hormariyey, si dadbanna waxaa loogu sheegay dunidooda gaarka inay tahay dunidaas, marna waxbarasho inay is-ceyrsadaan, inta kalena wakhtigooda ka soo hartayna ay kubad, muusig iyo musalsallo lagu mashquuliyo. Waa hirgalay qorshahaasi, waana midda ilaa iyo maanta ay fagaarayaasha nolosha oo idil dhallinyaradu uga maqan tahay, wakhtigoodana si kasta oo ay ku dili karaan falankeeda ay hayaan. Maantana waxaa inaga qarsoonayn xaalkeenna iyo sida uu yahay. Waxaad dareemaysaa inaynaan qiimo badan siinayn kana faa'iidaysanaynin wakhtiga, waxqabad iyo horumar aanan ku tartamayn, ee aan raadinayno sidii aan ku dili lahayn wakhtiga oo aan isku dhaafin lahayn. Waana arrin halisteeda leh, waayo haddii aysan dhallinyaradu wakhtiga ay haystaan ka faa'iidaysan, wuxuu ku noqonayaa cadow ku mashquuliya wax aysan rabin, sidoo kalena uu noqdo wakhtigu mid haga iyaga oo madaxa u geliya meel aysan mahadin hadhow.